بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد waxaan salaan diiran u dirayaa dhammaan maamulka jaamacadda Camuud dhammaan shaqaalaha jaamacadda Camuud dhammaan ardayda kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud dhigta iyo dhammaan taageerayaasha jaamacadda Camuud waxaa sharaf weyn ah inaan idinku bishaareeyo in jaamacadda Camuud qabanayso munaasabad aad u qiimo badan oo la yiraahdo toddobaadka dhaqanka jaamacadda Camuud sida ay wada ognahay dhaqankeenu ama dhaqanku waa astaanta lagu garto ummad kasta waana taariikhda jiilasha waana hidaha lagu ilaashado jiritaanka bulshada sidaas darteed jaamacadda Camuud waxay muhiimad gaar ah siinaysaa horumarinta aqoonta iyo dhowrista dhaqankeena suuban barnaamijkani wuxuu si weyn u bilaami doonaa maalinta beritoole oo xada bishuna tahay 3 wuxuuna socon doonaa ilaa khamiista oo tahay bishu 7 waxa laga codsanayaa dhammaan tartamayaasha waxaan ka codsanaynaa inay diyaar ahaadaan 8 subaxnimo yimaadaan hoolkii hore ee qalinjibinta jaamacadda Camuud halkaas oo ka bilaami doono tartanku ka bilaami doono haddaba tartamayaashu waxay ku socon doonaan schedule ama jadwal loo diyaariyay ayaabay ku socon doonaan maalinta axadda ay bishu 3 tahay waxa bilaami doona tartanka gabayada oo ardayda soo xareysatay ay tahay 13 arday ardayda soo xareysatay waa 13 arday waxana laga soo xuli doonaa 2 arday sidoo kale waxa iyaguna isla maalintaasi tartami doona 2 kooxood oo seyliciga ah iyaguna waxa ka soo bixi doona hal koox oo iyaguna waxa weeyaan maalintaasi tartanka lagu soo saari doono haddaba 2 arday ee gabayada ku guuleysta iyo kooxda ku guuleysatay seyliciga waxa uu diyaar galoobi doonaan maalinta eventiska weyn la qabanayo oo ah maalinta khamiista oo bisha 7 tahay maalinta isniinta waxa jiri doona oo la qaban doona tartanka farshaxanka waxaana soo xareystay ardayda soo xareysatay waa 14 arday waxaana soo bixi doona 2 arday labada ardayna waxay ka qayb gali doonaan oo farshaxankoogaasi ku soo bandhigi doonaan hoolka weyn ee jaamacadda maalinta khamiista waxa kale oo jira arday iyaguna xinaha soo xareystay oo iyaguna 10 ardaya 10ka ardayna labada arday ee soo baxay iyaguna waxay ku tartami doonaan maalinta khamiista oo hoolka weyn ayaabay ku soo bandhigi doonaan hibadooda maalinta salaasada ay bishu 5 tahay waxa dhacaya tartanka ruwaayadaha ama daraamaaga loo yaqaano waxaana soo xareystay 6 kuliyadood 6 kuliyadood waxa laga soo xuli doonaa 2 kuliyadood kaliya 2 kuliyadood ayaa u gudbi doona finalka iyagana maalinta khamiista ah runtii ruwaayadooda la daawan doona sidoo kale waxa jira tartankii isaguna orodka waxa lagu qaban doonaa jaamacadda Camuud tartanka orodka waa orodkii dheeraa iyo orodkii gaabnaa labada orod ama orodka dheer iyo orodka gaabanba tirada ardayda soo xareysatay waa 23 arday 23ka arday ayaa ku tartami doona iyaguna oo runtii biladaha la siin doona kuwii ku guuleysta tartanka qaybta koowaad iyo qaybta labaad arbacada oo ah bishu maalinta arbacada bishu ay tahay 6 waxa maalinta loogu tala galay diyaar galowga ama munaasabada weyn ee lagu qabanayo hoolka weyn inay tartamayaashii soo guuleystay ay u diyaar galoobaan maalinta khamiista ah ay bulshada iyo ardaydaba ay soo bandhigi doonaan maalinta khamiista ay bishu 7 tahay waa maalinta ugu weyn ee hoolka weyn ee jaamacadda ama hoolka cusub ee event centerka ee jaamacadda loo dhisay ay iskugu iman doonaan arday tiradoodu dhan tahay 3,000 arday oo kuraastooda loo diyaariyay 3,000 arday waxa stage-ka lagu marti qaadi doonaa ardaydii tartamayaashii ay ku soo bandhigi doonaan hibadooda waxaana halka lagu bixin doonaa abaalmarinta loogu tala galay ardayda iyo guuleystayaashii ku soo guuleystay ama ku guuleystay awardska ardaydeena qaaliga ah waxaan u sheegayaa inay tani tahay fursad inuu muujinaysa kartidiina daacadnimadiina iyo hal abuurnimadiina ugu dambeyn barnaamijka toddobaadka dhaqanka waxaad kala soo xiriiri doontaan agaasimaha borotokoolka iyo eventiska oo ah gudoomiyaha qabanqaabada toddobaadka dhaqanka iyo labada xafiis ee la shaqeynaya waa xafiiska arrimaha ardayda
iyo xafiiska student unionka jaamacadda Camuud. maamaha Soomaaliyeed waxay tiraahaa geed walba xididkiisa ayuu ku taagan yahay. haddaba aynu xoojino xididkeena oo ah dhaqankeena iyo hidaheena suuban. waxaan idin sugaynaaba dhammaantiin taageerayaasha jaamacadda Camuud iyo ardayda jaamacadda Camuud inaad nagala soo qayb gashaan toddobaadka dhaqanka jaamacadda Camuud 2026 oo bilaabmaya maalinta Axadda ah soona gabagabaysmaya maalinta Khamiista.